Asalaamu calaykum walaalayga soo dhawaada insha Allah. Maanta waxaan sameynayaa chicken kebab sida u arkaysaan. Waana idin tusi doonaa step by step anigoo sameynayo. Xaggaasi waxaan ku haystaa chickenkii iyo xawaajiyadii oo dhan iyo 2 xabo yaanyo soo xoqay iyo basal iyo kabsar caleen. Intii dhammaantoodna waa magacyadooda xagga hoosan kusoo qori doonaa. Xawaajiyadan waa xawaajiye kala coriander, garam masala iyo toon and tumay iyo basbaas yar iyo maraq digaag insha Allah. Xagga hoosana waan kusoo qori doonaa sida ula soconaysaan. sida u arkaysaan xawaajiyadii aan ku wada daray. Waxaan ku dari doonaa yaanyadii aan shiiday. Waxaan ku dari doonaa basashi iyo kabsar caleenta aan ku darayaa sida arkaysaan. Intaasaan isku soo qasayaa markay isdhex galaan. Kadibna sida ku arki doontaan burkan ku dari doonaa insha Allah. شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورف sida u arkaysaan hadda burkiin ku daray. Burku wax yar baan isticmaalay maanan ku badinin waan isku mix karay. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك ما شاء الله chickenkii sidaas ku soo baxay chicken kebabkii. waa mahadsantahay daawashada insha Allah. Salaam calaykum.